calafkiyaa dhamaado abooye calafki hadduu dhamaade oo lisfure ma ahan inay banaanaha liskaaga dhagaha hambalyadeeda kadib ayuu xustahay noo qoftan oo ku heestahay si ku geli kara adeesto ku shaqaysanay waa u diray afcad saa ku dhacay waa u diray waxaan dhahay heeskaas haddaan soo wada qaadna ka waran adoo Nairobi joogsid adoo Nairobi joogsid halkaan ka soo wada qaadno way la qaadatay aduu hees wax kamid shukaansiga kamid ah waxyaabahan ku shukaansanay kusoo dhawow Uma Xamse official asxaabta qaaliga waan islaamaya oo walaashiin oo marka la soo laabatay iyo video kale waxaan kaga hadlaynaa arin yaamahan isdaba jinta social media qabsatay soo jeeda amteedka ka soo aragteen ba arintan ee maanta ka hadlaya qusaysa marka waxaan leeyahay kusoo dhawaada qalbi furan ugu horeyn channel ku cusub tahay kusoo dhawow subscribe gareyso gambarka furo hadda hore la joogtana ma san tahay si la gareysin share garey thanks a lot tanina waa fanaanada rasmi rays oo ka hadlaysa lamaanayaasha isjecel markay isku dhacaan oo macnaha xaaladu isbedesho iyadoo ka hadlaysa wax la calaaya ilaahay iguma keenan aniga odagayga kala yacno ayay leedahay laakiin wax qornaa ayaa jiray oo hortoodba la qoray marka waaba la kala yaacayba marka iyadoo hadda waxay noo sharaxaysaa oo ka hadlaysaa haddii la calaa aan kala tegi lahayn aniga odagayga camal meelahaas kuma aanan soo fariisaneen aduu qisooyin kale ayay ka hadlaysaa ininka dhegeysta insha allah anigana inta arrinkaas aan u gelin videogaas aan u gelin rasmileys ka hadlayso waxaan leeyahay asxaabay iyaantaas qabsigu waa batay soon baa lagu jiray marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed wax madaba in la dhasheen bas qabsiga marka bal aan ku hakano insha Allah yani waxa ka yahay waxa tahay wiilkan iyo gabadhan shalay is qabeen oo niman kale lagu arki jirin inaaya kale markay isfuraan wiilkana gabadhan halkan uga soo booday ninkana naagtan halkan uga soo booday marka hore xagii joogeen maxaa may sugayeen iradii u taagnaayeen waxay tiri fanaanadeena da'yar oo quruxda badan ee codka halaasiga leh oo dhalinyarada hadda loogu jecel yahay waxay ka sheekaysay waxay tiri ninkii naagtu mar is jecel markay iskala yaacaan lamaanaha is jecel ay kala yaacaan ninkana naagta hababa halka uga soo dhaxaysa oo jecel oo isku soo qalajinaysa xagee ka soo boodaysa awalba haddii meesha jecel yahay qofku jeclaa kasoo tagay macnihii waa inay muddo kasoo wareegtaa ayay ula jeedaa hadalka markaas kadib ayuu qofku lamaana samaysan karaa laakiin maanta haddii la kala tago beri qofku saladan la arko sheekadaas ayay ka hadlaysaa tusaale ahaan sida dhalinyarada Soomaalida ka dhacda inta badan marka walaalahayga qaaliga bal ila dhegeysta haddaan soo wada qaadna ka waran adoo Nairobi joogsid adoo Nairobi joogsid halkaan ka soo wada qaadno way la qaadatay aduu hees wax kamid shukaansiga kamid ah waxyaabahan ku shukaansanay ku jirtay heestaasi sax markii dambe masha Allah ay teeno si dhaxgal noo suurta gashinaan iskuursano hawlaha ay ku dhamaadeen iyo dib ka eegna heestii waxay noqotay hees dareenkaygu dareen yahay naqusaya anaga hadlaysa masha Allah iyo noqotay sidii baan iskula garanay markii hore shukaansiga ahayd iyo isku soo galgalitaan sidii baan iskula garanay sax inaan anagoo إجابنا فانت اللي دينا ارتضوا مركو حبيبي ما حايدك نتركينا رجيني أتكلم intaasna waa Snapchat ay iska duween arooskoodii rasmi raysna videogan ay ka hadlayso arrimahaas kale iyo lamaanayaasha isfura iyo lamaanayaasha isjecel waxay soo dubtaa baan filayaa ugu yaraan hal sano ka hor hadday iska badnayn xilliyadii adiga ay jacayl ku jilaayeen marka dad badan ayaa hadda wax isla dhex marayaan farxaan yare iyo rasmi rays heshiis ayaa lagu baaqay heshiis inuu dhici doono oo laga yaabo inaan mar kale aragno iyagoo lamaane ah inay sidaasba ku kala baadaan ku kala halaabaan oo la iswaayaan ayaa ay noqdaan kuwa aan macnaheedu weligood is carfan dib dambe ana waa loo badinayaa maadaama wax walba suuroobaan oo hadda dee xaaladu qir iyo qir taagan tahay oo meelo badan ay maxaa la dhahaa isaga soo jawaabeen oo macnaheedu dagaalkooda social media haystay marka asxaabay waxaan rajaynayaa inaad ka bogateen aad iyo aad ayaad mahadsantihiin kusoo dhawaada channelkayga gacmo furan qalbi furan ayaan inaanay dib u dambaysa hawadooda aanu qofna soo galin runtii waynu ku faraxsanahay oo waynu sugaynaa nolol qurux badan oo dib u soo bilaabanta waxa aan odhan karnaa farxaan yare iyo rasmi rays waa kuwooda ugu tunka waaweyn fanaaniinta Soomaaliyeed ee waliba shacaylkooda uu ahaa shacaylka dhabta ah oo aan soo marin fanaan hore oo Soomaaliyeed waliba labadan fanaan ayaa ahaa laba fanaan oo si sax ah isugu soo baxay
oo aad moodo in dadka Soomaaliyeed oo dhan ay isla doorteen. runtii rasmi rays way jeceshay farxaan yarana wuu jecel yahay rasmi rays taas inagama saarna oo waxaa inoo tusaale ah marka aad dib u raacdo muuqaaladoodii ay soo wada duubi jireen sida ay isugu qurux badnaayeen ee ay isu jeclaayeen sidaasoo ay tahay rasmi rays ayaa u ahayd udubdhaxaadka reerkaa dundumay ee weliba aadka loo kala fogeeyey balse runtii rasmi rays markaa waxay ahayd qof hagaysa reerka oo u ahayd indhe iyo toosh runtii markaad muuqaaladooda u soo fiirsato rasmi rays ayaa reerka u ahayd cududda ugu weyn oo weliba nooc dhaqaale iyo nooc cududeedba hadday noqoto rasmi rays ayaa haysatay farxaan yare isaguna wuxuu ahaa ninka reerka oo lagama maarmeyn rasmi rays markaa waxaynu odhan karnaa iyada ayaa quluubta reerka haysay waxaynu ilaahay uga baryaynaa waa bil ramadaane inuu ilaahay isku soo celiyo oo weliba aynan dheheenuna arkaan sidaasoo ay tahay calafku haddii uu dhammaado isagu waa mid lama huraana oo waxa weeye wuxuu ilaahay kuu qoray marna waayi maysid balse runtii labadan lamaane ayaa qisadoodu ay aada ugu faaftay baraha bulshada waana labada fanaan ee keliya ee aadka inta badan loo hadal hayay muddooyinkii ugu dambeeyey odhan karnaa labadan fanaan ee rasmi rays iyo farxaan yare waxay ahaayeen fanaaniinta qalbiyada quluubta dadka Soomaaliyeed ruuxi jiray ee aadka u soo shiidan jiray dadku aad ayay u jecel yihiin waa sida ay isugula doonayaan inay marun isku soo noqdaan oo ay arkaan indhaha dadka Soomaaliyeed oo dhan farxaan yare iyo rasmi rays oo gacmaha ishaysta lamaanahan uu mugdiga geliyeen dadka Soomaaliyeed oo dhan ee shakigana uu ku abuuray inaanay dib isugu soo noqon doonin oo aanay shaan iyo cirib isku soo dhigi doonin ayaynu ognahay in dib la isugu soo celin karo weliba siyaabo ugu dhow haddii la raaco wadooyinka ugu fudud waxayna noqon kartaa farxaan yare ma ogtahay inay Nairobi joogaan fanaaniin saaxiibo rasmi ah ay wada yihiin rasmi raysna ma ogtahay inay Hargeysa joogaan fanaaniin badan oo ay saaxiibo rasmi ah wada yihiin kuwaas iyo weliba cuqaal iyo dadka Soomaaliyeed oo gacmaha isqabsada ayaynaan ka biyadiidi karin inay isku soo noqdaan rasmi rays iyo farxaan yare wadow ma ogtahay inaanay mar dambe isku soo jawaabi doonin fanaanka rasmi rays iyo farxaan yare balse waxa keliya aynu sugaynaa in ay soo sheegaan iyaga oo leh annagu lamaano qura ayaanu nahay wixii horena daadka ayaanu raacinay dad quraanu wada nahay dadkuna waa dadkeennii gabadii iyo guntii iyo barnaamijkeenna waxaynu ku soo gebagabaynaynaa mar kasta inaynu ilaahay u barino oo aynu u ducayno lamaanaha quruxda badan ee ku dayashada mudnaa halkan waxaanu kaaga soo gudbinaynaa waa Xaqsoor TV oo si toosa idinka soo tibinaya barta aynu ku leenahay YouTube iyo weliba barteena arrimaha qarsoon ee Facebook waxaanu kaa codsanaynaa inaanu mar walba kuu soo bandhigi doono muuqaalo xasaasi ah oo ku qotoma xaqiiqada waxaana kaa codsanaynaa walaal inaad naga mid ahaato oo aadna dhiirigeliso